السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبيال soo dhawaada. Waxaan muuqaalkeena maanta idinkula wadaagi doonaa 5 sababood oo lama huraan ka dhigayo akhrinta sheeko-faneedka. Dhab ahaantii kolkaad fiiriso Soomaalidu guud ahaan waxay aad u akhriyaan buugaagta self-help bookska ah ama dhiirigelinta iyo buugaagta taariikhda. Sidoo kale waxaa lama huraan ah in qof waliba uu caado ka dhigto akhrinta sheeko-faneedka waliba 5 sababood awgeed. sheeko-faneedku waxa uu ka caawinayaa inaad fahanto gunta hoose aadanaha. Had iyo jeer kol waliba aad akhriso sheeko-faneed waxaa tababaranaya maskaxdaada waxayna baranaysaa emotionska iyo waliba habdhaqanka aadanaha oo dhan. sheeko-faneedku wuxuu ka saacidayaa korinshaha maskaxdaada. kol waliba aad dhacdo la kulanto waxaad raadinaysaa markaasi faktarka ka dambeeya dhacdadaasi iyo waliba xalkeeda. sheeko-faneedku waxay horumarisaa akhristaha luqadiisa. waxaana macquul ah akhristaha akhriya sheeko-faneed badan inuu laftiisa noqdo sheeko qoro wanaagsan ama sheeko tabiye aad u wanaagsan. sheeko-faneedku waxa uu yareeyaa stresska akhristaha sidoo kale tan waxa uu ziyaadiyaa diiradiisa. kol waliba inuu isticmaalno baraha bulshada waxaynu weynaa diiradeena waxaynu noqonaa kuwa la qabsada reeliska iyo muuqaalada aad u gaagaaban. sidoo kale kol waliba inuu joogteeno isticmaalka baraha bulshada waxaynu la kulannaa waxyaabo negative ah. waxyaabahaas negative ah waxay noqdaan qayb ka mid ah nolosheena. taasina waxay saameynaysaa markaasi habdhaqankii iyo waliba maskaxdii qofka. akhrinta sheeko-faneedka marka waxay ka saacidaysaa markaasi waxyaabaha negative-ka ah ee maskaxdaada la qabsanayso in meesha laga saaro oo dhacdo waliba oo xun markaasi aad ogaato inay xun tahay. way marnaba positive isku bedelin ama habdhaqankaaga caadiga ah ayna ka mid noqonin waxyaabahaas negative-ka ah. sidoo kale akhrinta sheeko-faneedka waxay kicisaa mararka qaar dareemaha qofka akhristaha ah wuxuuna suureystaa markaasi caalam uu marnaba tegi karin. kaba soo qaad waxaad akhrinaysaa sheeko-faneed ku saabsan Maaris. qoraaga ama actor-ka markaasi sheekadaasi waxa uu ka hadlayaa markaasi wax waliba oo laga heli karo Maaris. adiga Maaris waliga ma aadan tegin laakiin si maskaxiyan ah ama wax fikir aad u qoto dheer ayaad halkaas ku tagaysaa waxaana soo dabaalanaysaa duni markaasi cajaa'ibteeda leh. haddaba anagoo ka duulayna faa'iidooyinkaasi dhowrka ah iyo kuwa kale oo badan ayaan waxaynu go'aansanay in barteena caawiya YouTube aynu idinku soo gudbino khulaasada sheeko-faneedyada. ilaa ay haatan waxaynu codeynay waliba khulaaseynay 2 sheeko-faneed. sheeko-faneedka koowaad aynu khulaaseynay waa Dooliyada iyo Aadanaha waxaana qoray John Steinbeck, mid ka mid ah qoraayada ugu caansan Mareykanka iyo waliba dunideena. aadna wuxuu qoraagan caan u yahay qorista sheeko-faneedyada gaagaaban. sheeko-faneedkaas waxay ahayd mid aad u cajiib ah. ilaa 10 daqiiqo ayaan kusoo khulaaseynay. sheeko-faneedka labaad ee aynu khulaaseynay waxaa loo yaqaanaa Metamorphosis. isagana waxaa qoray filsufkii weynaa ee Franz Kafka. labadan sheeko aniga waxaan ku akhriyay luqadda Turkiga. adinkuse waxaad kaga bogan doontaan barteena caawiya YouTube waliba adinkoo waqti badan gelinayn. sheeko waliba oo aynu khulaaseyno waxaan idin soo raaci doonaa qayb ka mid ah qoraaga taariikhdiisa sidoo kale ahmiyadda sheekadaasi falaqayn sheekada ku saabsan iyo waxa ka dambeeya yani casharada aynu ku baran doono sheekadaasi. sidoo kale qaybta ugu dambeyso ee sheeko-faneedkaasi waxaan kusoo qaadan doonaa markaasi oraahada cajiibka ah ee markaasi aynu aad uga helnay inta aynu ku guda jirnay akhrinta sheeko-faneedkaas. labadii sano ee ugu dambeysay waxaan akhriyay ku dhawaad sheeko-faneedyo 30 gaaraya. dhammaantoodna waan idiin soo khulaaseyn doonaa oo barteena YouTube-ka ayaan soo geli doonaa haddii Rabbi subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo. haddaba adinkana waxaan idinka codsanaynaa inaadna dhiirigelisaan oo subscribe saartaan barteena YouTube-ka la garaysaan muuqaaladeena sidoo kale tan aad la wadaagtaan saaxiibadiina. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.